Soomaaliya waxay ka sii baxaysaa kumeel gaarka maadaama qaar ka mid ah tillaabooyinka loogu gudbayo kumeel gaarnimada lagu guulaystay taas oo ah doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Soomaaliya waxay xilligan leedahay guddoomiye baarlamaan oo cusub waxaana uu darbadiiba taageero ballaaran ka helayaa Soomaalida qurbo joogta ah. Kulan ballaaran oo lagu taageerayay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii oo ah saldhigga ay Soomaalida Kenya ugu badan yihiin, iyadoona sidoo kale baaq ku aadan sii deynta xildhibaan ku xiran magaalada Muqdisho goobta laga jeediyey. Waxgarad, siyaasiyiin, culimaawidiin, dhalinyaro, haween iyo qaar ka mid ah ururada jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalkan Kenya oo munaasabadda taageerada Jawaari goobjoog ka ahaa ayaa waxay sheegeen inay si weyn u taageerayaan guddoomiyaha cusub ayna la garab taagan yihiin taageero dhan waliba. Dr. Axmed Xirsi Barre oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland ayaa ku baaqay in la taageero guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka, isaguna sidoo kale sheegay in dowladda Puntland ka ahaan ay jeedinayaan baaq ku aadan sii deynta xildhibaan ku xiran magaalada Muqdisho sida uu sheegay. Waxaan u hambalyaynaynaa si kaliya laaba baarlamaanka Soomaaliya oo shalay shirku yeeshay xamar oo lagu doortay guddoomiyihii baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari iyo labadiisa ku xigeen. Hambalyo baan u diraynaa dadka sharafkii iyo wanaaggii shalay ka dhacay meesha xamar oo doorashadu ka dhacday. Waxaan kaloo u diraynaa hambalyo sidoo kale Suldaan Cismaan Awaadan oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in taageero degdeg ay siiyaan guddoomiye Jawaari. hambalyadayadu waxay qusaysaa oo ay rasmigeedu yahay guddoomiyaha Soomaaliya oo aan 20 sano doorasho Soomaaliya dhexdeeda lagu qabto oo lagu dadkoo dhan shacbiga oday iyo nin yar iyo nin weyn iyo gabar iyo aqoon-yahan iyo dhalinyaro iyo ayaan isugu imaan maanta ka hortay taas baanu mudane Maxamed Cismaan Jawaari oo aanu ku ognahay inuu yahay nin Soomaaliya maanta isu keenideeda iyo waxqabadkeeda iyo dib u heshiinteeda iyo nidaamkeeda nin wadin kara aanu u naqaan hambaliyadiisa guud ahaaneed baa asalku yahay halkaan isugu nimid. waxgaradkii munaasabadda taageerada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ka hadlay ayaa dhammaantoodba ka wada dhawaajiyey taageerada uu u baahan yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba sii deynta xildhibaan ku xiran magaalada Muqdisho. in aan ku soo dhaweyno ra'iisul baarlamaanka cusub Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo labadiisa ku xigeenba taasoo si weyn loogu guulaystay taasoo muddo la sugayay taasoo ka soo bilaabatay ilaa sanadkii loo baxshay sanadkii roadmapka xafladan oo ku saabsan hambaliyada golaha shacabka ama baarlamaanka Soomaaliya xafladii shalay ka dhacday Muqdisho ay ku doorteen hoggaanka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa waxaa maanta farxad noo ah oo hambaliyo noo ah oo isinaati noo ah oo aanaan malaysanay in inta baarlamaan yimaado oo wax doorto oo asagaan islayn ma isi soo taaga masharka ay gacantaag wax ku doortaan taas waxa weeye bini'aadanku marka uu yar yahay oo yarka yahay ilaa inuu qaan gaaro burbur baa la soo maray waa la soo shalay waxaa la soo maray dhibaato badan ilaa iyo hadda dawladdii lagu doortay Kibaati ilaa inta ka dhaxla waa la soo kufay maanta inaan gaaro in baarlamaan xaq aan dooranno ummadda hoggaamiya waa noo hambal meeshaan isku nimid taageero iyo gacansiin iyo guul inaan helno guul baarlamaanka cusub oo shalay lagu doortay magaalada Muqdisho iyadoo 40 sano oo hadda aynu soo dhaaftay aan Soomaaliya lagu dooran baarlamaan waxaanu mahadcelinaynaa oo taageeraynaa waxaan leenahay taageero wanaagsan iyo guul Professor Maxamed Cusmaan Jawaari waxaan marka hore u hambaliyaynayaa u tahniyadaynayaa
ninka shalay lagu doortay xamar ninka la yiraahdo maxamed cismaan sheekh jawaari ninkaas waxaan leenahay ha guulaysto qaranimada udubka ugu horeeyay ee institutionkii hay'adda sharci dejinta dalka Soomaaliya shalay dhid badan loogu aasay magaalada Muqdisho taageeradeeda iyo hogaamiyaha cusub ee professorka loo doortay waxaanu leenahay guddigii baarlamaanka bixinta ama ha ahaado kamida Afrika ama iyaga ha ahaado ama ha ahaado mid Soomaaliyeed guddi Soomaaliyeed ama mid dowlad ha ahaado ama Mareykan ha ahaado guddigii meeshaas qabanqaabiyey yaan taariikh u geliyay kuwaas oo diiday qof dalka barmadow ku taalo oo ismaaro gacan ku haynteed koontan qof isugu dilay waxa weeye inay yidhaahdaan baarlamaanka sooma gelayaan taariikh weyn baan u diraya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa si aad u daneynaya isbedel siyaasadeed oo dalka ka hana qaadaan waxaana ay sidoo kale sheegeen inay muhiim tahay in Soomaalidu xilligan ay isku tiirsanaadaan Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV